بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي halkan waa xogta dalka hadaba qodobada aad ku maqli doontaan warkayaga haduu rabbi ka raali noqdana waxa qayb ka noqonaya ciidamo dharcad ah oo si qasaba garoonka Muqdisho kala soo baxay dad ajaanib ah isla markaana waaxda socdaalka garoonka ay doonaysay markaas in hubin ay marsiiso iyo sababaha ay u yimaadeen maxaa sababay arinta soo noqnoqotay ee shalay iyo maanta isla markaana gacan ka hadal u dhaxeeyo ciidanka garoonka iyo sidaas oo kale dharcad isku bedeshay hadaba maxay salka ku haysaa 24 saac ee la soo dhaafay qayb ka mid ah xaafadaha Muqdisho waxa ka dhacay dilal qorsheysan isla markaana ay geysanayeen dabley bistoolada ku hubeysan geesta kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada ee Muqdisho ayaa gudoomiye cusub u soo magacaabay degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir madasha badbaado qaran waxa ay shuruud adag u gudbisay golaha ammaanka midowga Afrika isla markaana ku saabsan arrimaha siyaasadaha isdiidan ee dalka daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadii ugu door corona warkayaga haatanna ku soo dhawaada qodobada oo inta ka faahfaahsan halkan waa xogta dalka hadaba hadii ay tahay booqashadaadii kuugu horeysay ee aad soo booqato janalkan xogta dalka waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saartay isla markaana gambaleelka aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararkeena ugu horeyn aynu ku bilawnay madasha badbaado qaran ayaa shuruud adag u gudbisay golaha ammaanka midowga Afrika ka hor kulan ay ku badalsanaayeen Muqdisho madasha badbaado qaran ayaa qoraal u dirtay golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika oo maanta kulan kula yeelanayay magaalada caasimada ah ee Muqdisho qoraalkaas oo la mariyay safiirka Djibouti ee Ethiopia Maxamed Idris Farax oo ah gudoomiyaha imanka ee golahaasi kulankan golaha ee maanta ayaa la filayaa in looga hadlo isku day midowga Afrika ku doonayaan in ay ku dhaxdhaxaadiyaan dhinacyada Soomaaliya kadibna siyaasadooda ay isdiidan tahay kadib cadaadis kaga yimid beesha caalamka oo keenay in farmaajo uu dalbado dhaxdhaxaadin asaga iyo qaar ka mid ah midowga musharaxiinta qoraalkan ayay madashu ku sheegtay in ay soo dhaweynayso dhaxdhaxaadin dibadeed oo loo sameeyay dhinacyada siyaasadda isdiidan ee Soomaaliya hase yeeshee waxay sheegtay in wada hadal kasta ay qasab tahay in saldhig looga dhigo diidmada muddo kororsiga sharci darrada ah ee 2 sano iyo ku laabashada wada hadalada fulinta heshiiskii 17 September ee doorashooyinka qoraalkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu caqabad ku yahay in dalku ay ka dhacaan doorashooyin daahfuran nabad ah loona dhan yahay uuna isku dayo in uu awood u adeegsado iyo ficilo sidaas oo kale aan wanaagsiisnayn sidaas darteed waxaan ku baaqaynaa in golaha ammaanka iyo nabadgelyada midowga Afrika uu qaato talaabo degdeg ah oo looga hortagaya arintan oo noqotay mid dhab ah ayaa lagu yiri qoraalkan ayaa intaasi ku daraya in tilaabada ay qaadeen baarlamaanka Soomaaliya ay ahayd mid aan sharci daro kaliya ahayn balse sidoo kale ay ka hor imaanayso dastuurka maadaama golaha muddo kororsi xileedkiisu dhamaaday uu muddo kororsi aan sax ahayn uu u sameeyay hay'adaha dastuuriga ee dalka iyo sidaas oo kale madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxay tilaabadaasi ku qeexayaan mid dambi ah isla markaana musuqmaasuq toos u ah tan iyo 12 Abriil kadib muddo kordhin marka ay baarlamaanka Soomaaliya u sameeyeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday iyo sidaas oo kale hay'adaha dastuuriga ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa ka dhashay khilaaf iyo isjijiid siyaasadeed geesta kalena garoonka magaalada caasimada ah ee Muqdisho waxa si xoog ah ku galay ciidamo dharcad ah isla markaana doonayay in garoonka ay kala soo baxaan sida wararka aynu ku helayna dad cadaan ah waaxda socdaalka ay garoonku doonaysay in hubin sharci ah ay marsiiso iyo sababta ay markaasi
u yimaadeen Soomaaliya. wararka laga helayo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa sheegayo in barqanimadii maanta ay ka dhacday shaqaaqa u dhaxaysay ciidan ka tirsan NISA iyo shaqaalaha waaxda hay'adda socdaalka ee garoonka Muqdisho. shaqaaqadan oo sababtay gacan ka hadal ayaa lagu soo waramayaa inay sidoo kale dhalisay in muddo kooban ay hakad gasho shaqada garoonka Aadan Cadde. sidoo kale waxaa gacan ka hadalkaasi ka dhashay xaalad halis ah, waxaana dhaawacyo fudud ay soo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha halka ay burbureen agabyada xafiisyada halkaas yaalay ee lagu shaqeynayay. xiisada ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhalatay kadib markii shaqaalaha garoonka ee ciidanka NISA ay isku qabteen dad ajaanib ah oo NISA u socday, kuwaas oo loo diiday inay gudaha u soo galaan dalka iyadoo aan la hubin waxa ay yihiin iyo ujeedka ay u socdaan. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku darayay in goobta ay shaqaaqadu ka dhacday uu goor dambe tagay taliyaha hay'adda socdaalka jinsiyadda Maxamed Aadan Koofi oo xilli sii horeysay halkaasi tagay, waxaana si caadi ah ku soo laabtay dhaqdhaqaaqa garoonka Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde. arrintan ayaa sababtay walaac xoog leh oo soo wajahay shaqaalaha kala duwan ee garoonka ka howlgalo iyo sidaas oo kale dad xilligii shaqaaqada ay dhacaysay garoonka ka soo degay. magaalada caasimadda ah ee Muqdisho 24 saac aynu ka soo gudubnay waxaa siyaabo kala duwan uga dhacay dilal qorsheysan isla markaana ay fulinayeen dabley bistoolada ku hubaysan. xalay ayay ahayd koox dabley ah oo bistoolada ku hubaysan markii magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay dil ugu geysteen ruux dhalinyaro ah isla markaana la sheegay in uu markaasi ka soo baxay salaada cishaha. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in dableydii xalay dilka geysatay ay goobta isaga baxsadeen. sidaas oo kale barqanimadii saakay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka dhacay dil. Dr. Buurane ayaana lagu dilay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. koox xubaysan ayaa lagu soo waramayaa in xaafadda Albaraka ay ku toogteen Dr. Xasan Cismaan ciise Buurane oo ka mid ah dhaqaatiirta caanka ka ah guud ahaan geyiga Soomaaliyeed, waxaana la sheegayaa wararku ay intaa ku darayeen in dhakhtarka ay dilka u geysteen laba ruux oo markaasi ku hubaysneed bistoolado. dilka kadib waxaa la sheegayaa in goobta ay isaga baxsadeen. wararka ayaa sheegaya in dhakhtarka la dilay isaga oo hor fadhiya guri uu ku leeyahay halkaasi, kaas oo ku yaala isla xarunta uu ka howlgalo ee Albarako. Dr. Buurane oo ku takhasusay xanuunada maqaarka ayaa 30 sano ka badan ku soo jiray howlaha caafimaad, wuxuuna soo noqday agaasimaha isbitaalka Madiina. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in intaasi ay ku darayaan raggii dilka geystay in goobta isaga baxsadeen isla markaana ay soo gaareen qaar ka mid ah ciidankii halkaasi ka howlgalayay. dilka kadib ayaa ciidankii halkaasi soo gaaray waxa ay ka fuliyeen howlgallo isla markaana ay ku soo qabqabteen tiro dad ah markaasi ay ku tuhunsan yihiin in ay ka dambeeyeen dilka Dr. Buurane. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la sheegayaa in hub iyo sidaas oo kale gaadiid cusub uu dagaal uu soo iibsaday kadib marka uu sheegay in baqdin iyo weeraro uu ka baqay. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa la sheegayaa in uu soo iibsaday gaadiid dagaal iyo hub fara badan oo uu isku daafacayo, sida markaas ila ka agdhow ay noo xaqiijiyeen. xog aynu helayna ayaa tilmaamaysa in musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu soo iibsaday gaadiid gaaraya ilaa iyo 8 gaari oo kuwa dagaalka ah, iyadoona horay ay ugu yaaleen sidaas oo kale gaadiid dagaal. sidoo kale xogta ayaa waxay tilmaamaysaa in Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame uu soo iibsaday hub badan oo markaasi isugu jiro hubka noocyadiisa kala duwan. arrimtaani ayaa waxay ka dambaysaa kadib markii ay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ay gashay xaalad amni oo hubin la'aan ah, taas oo ka dhalatay muranka doorashooyinka Soomaaliya, lagana cabsi qabo in dawladda ay weerar ku soo qaato qaar ka mid ah midowga musharaxiinta oo qaybo kala duwan oo markaasi degmooyinka gobolka Banaadir u kala guuray. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka kuwa ugu cadcad ayaa sidoo kale
waxa uu ugu horeeyaa siyaasiyiinta hawiye ee diidan muddo kororsiga baarlamaanka Soomaaliya ay u sameeyeen madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. dhammaan siyaasiyiinta diidan siyaasadda Farmaajo iyo muddo kororsiga ayaa wax ay Muqdisho ka wadaan hub aruursi iyo sidaas oo kale ciidan beeleedyo lagu arkayo qaybaha markaasi ay ka degan yihiin Muqdisho iyo xaafadahooda. mararka qaar waxa dhacda in isgoosyada ka agdhow guryaha ay degan yihiin ay xirtaan musharaxiinta mucaaradka oo degay jihooyinka kala duwan ee magaalada Muqdisho. daawadayaal guud ahaan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii oo aad kala socoteen xogta dalka. halkan waa xogta dalka. haddaba haddii ay tahay booqashadaadii kugu horeysay ee aad soo booqato channelkan, waxaynu si naxariis leh kaaga codsanaynaa in subscribe aad noo saarto isla markaana gambaleelka aad furato. waad ku mahadsan tahay la socodka iyo la jaanqaadka warkayaga. aalaaba ku xirnaa boggeena xogta dalka.